xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadanimada UNOCHA ayaa warbixin cusub ka soo saaray xaaladda adag ee dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha bini'aadanimada ee haatan ka taagan qaybo ka mid ah dalka. warbixinta ka soo baxday UNOCHA ayaa waxaa lagu shaaciyay digniin cusub oo ku aadan cunno yari baahsan oo haatan soo wajahday qoysas badan oo Soomaaliyeed iyada oo war-saxaafadeedkan lagu sheegay inay xaaladdu ka sii dari doonto sida muuqata marka la gaaro bisha May ee sanadka soo socda ee 2022. UNOCHA ayaa sidoo kale tilmaantay in qiyaastii ilaa 3.5 milyan oo qof ay wajihi doonaan cunto yari ba'an ilaa December, kuwaasi oo ku dhawaad 640,730 ka mid ah ay wajihi doonaan xaalad degdeg ah oo ka dhasha yaraanshiyaha ku yimaada roobabkii la filayay. yaraanshiyihii roobabkii deerta ee bilaha 10aad iyo 12aad ayaa sidoo kale si weyn u saameeyay wax soo saarka xoolaha, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay UNOCHA. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadanimada UNOCHA ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ka badan 5.9 milyan oo qof ay hadda u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo si looga samata bixiyo xaaladaha nololeed ee ku gadaaman. xaaladaha cimilada ee soo noqnoqda gaar ahaan abaaraha iyo fatahaadaha, caabuqa COVID-19 iyo saboolnimada sii kordhaysa ayaa mar kale dabcan laga cabsi qabaa inay waxyeello daran u sii gaarsiiso xaaladda hadda laga dayrinayo. xaaladahan bini'aadanimo ayaa waxaa uga sii daraysa abaar baahsan oo ku dhafatay qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobollada ku yaala koonfurta oo laga soo sheegaya dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah.